Without me, there would be no Israel, because no other. ma jirtaan Israa'iil aniga la'aantay. Benjamin Netanyahu xabsi ayuu ku danbayn lahaa haddaanan anigu joogin. ma jiro madaxweyne samayn karay intaan anigu Israa'iil taray. iyo weero kale oo qaybtood caro iyo niyad laga dheehan karay ayuu maalmihii dhawaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump warbaahinta u mariyay nidaamka Israa'iil. halka mushkiladu ka ogsateen waa ku dhagaaday Tel Aviv ee sii wadida dagaalka Lebanon iyo ku madaxadaygeeda inaan colaadda Iiraan heshiis laga gelin. hadallada kulul ee Trump u jeedinaya Netanyahu iyo nidaamkiisa ayaa yimid kadib markii Mareykanka iyo Iiraan heshiis hordhac ka gaareen soo afjaridda colaadda raagtay ee tan iyo bilowgii sanadkan sida rasmiga ah uga dhaxoogneyd labadan dhinac. in Washington ay xakameyn leedahay carada jalkeeda Israa'iilna waxaa soo dedejiyay sida xogtu warinayso diidmada qayaxan ee Israa'iil kala hortagtay heshiis la gaarista Iiraan ee Mareykanka. safkaradka 14 qodob ka kooban Mareykanka iyo Iiraan ee Jimcaha biriya saxiixiisa rasmiga loo balansan yahay. waxa falanqeeyaasha qadiyadan qaybtood ugu yeereen inuu noqon karo dhamaadka ama burbur fool xun oo ku yimaada xiriirkii khaaska ahaa ee Mareykanka iyo Israa'iil. ra'iisul wasaaraha nidaamkan Bibi Netanyahu ayaa qabay in heshiiskani yahay mid istiraatiijiyad ahaan iyo siyaasad ahaanba masiibo ah. wuxuu Netanyahu doonayaa in dagaalka uu isagu bilowgiisa garwadeenka ka ahaa uusan joogin marxalad joojintiisa laga heshiiyo. xitaa qayb ahaan xubnaha xukuumaddiisa ayaa maalmo ka hor si aan gabasho lahayn warbaahinta ugu sheegay inay ku gacan sayrayaan heshiiska Mareykanka oo ay dagaalka iyagu docdooda sii wadi doonaan ilaa bay yiraahdeen ay gaaraan hadafkooda gulufka oo ah in xukunka la dhaafiyo hoggaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Israa'iil oo Mareykanku intii dagaalkani socday balaayiin dollar oo hub nidaamyada difaaca iyo dhaqaale toos ahba ku taageeray ayaa u muuqatay inaysan markan maslaxadeeda ka dhex arag jihada cusub ee Washington ku wajahday xiisadda. waxa ay Tel Aviv isu aragtaa in looga baxay ballantii ahayd in Iiraan si rasmi ah jilbaha dhulka loogu dhigo sida xeeldheerayaasha xiisaddu qabaan, maadaama ay iyadu ballanka bax tirsanaysona culays kuma hayso inay Mareykanka markeeda ku diido hadafka ah in dagaalku gaaray halkii lagu soo afjari lahaa. warbixin ay daabacday shabakadda The Foreign Policy lagu magacaabo oo si weyn loogu lafaguray burburka uu qarka u joogo xiriirkii Mareykanka iyo Israa'iil ayaa lagu sheegay in marka laga tusaale qaato kacdoonada ka oogsanaya gudaha Mareykanka ee ka dhanka nidaamka haya hoggaanka Israa'iil, dhaqaale burburka iyo sicir bararka daran ee Mareykanku ka dhaxlay dagaalka Iiraan iyo baraaruga bulshada dalkaas ee ka dhanka ficilada lagu qeexay dambiyada dagaal ee Israa'iil joogtada ugu kacayso. waxa markii ugu horeysay muuqda dhabaha dhamaadka ee ugu yaraan xiriirkii heerka walaalnimo gaaray ee labadan dhinac. in ururadii gudaha Mareykanka uga ololeyn jiray Israa'iil sida AIPAC, Anti-Defamation League iyo Christian United for Israel ay lafahaantoodu howlgab noqdeen, isla markaana aysan haatan helin dabacsanaantii golayaasha sharciga Mareykanka iyo maalqabeennada ayaa iyana adkeynaysa warbixintu tiri in xiriirku mustawihiisii hore ku sii nagaado. Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka ee keligii aqbalay doonistii muddada dheer Israa'iil ku goobaysay dagaal la galo Iiraan ayaa haatan u muuqday inuu sidii Dwight D. Eisenhower calaamad su'aal weyn gelinayo cilaaqaadka Mareykanka ee Israa'iil, taasoo rajo xumo badaysa jaalnimadii ka soo bilaabatay aqoonsigii Israa'iil ee madaxweyne Harry Truman iyo halgankii David Ben-Gurionkii Israa'iil.